mar madaxda dhaqanka gobolka Awdal waan u mahadnaqayaa iyo mar kale shacbiga magaalada Boorame sidii milgaha lahayd ay maanta noo soo dhaweeyeen waxaan kaloo salaamayaa gudoomiyaha xisbiga wasiirada warasaabka golaha deegaanka iyo meeyarkaba iyo dhammaan mas'uuliyiinta kale ee halkan maanta caawa joogta dhowr qodob baan oo halkan laga xusay baan doonayaa ka xuso mid waa ballanqaadyadii hore sidaan sheegnay afar ballanqaad bay haayeen afartaba insha Allah waa ka fulayaan xaggayaga bari campaign-ku socday waxaan la soo jeediyay cabasho ku saabsanayd mishiinka oxygen-ta sameeya isbitaalka magaalada Boorame mishiinkaas waxaanu ballan qaadnay haddii aanu nimaadno inaanu bixin doono weli mishiinka u fadhiyaa marka caawa waxa naga diyaara inaanu bixino lacagtaas waana naga diyaar caawa waxaana wareejin doonaa wasiirka madaxtooyada ballanqaadka lixaad waxaa kii halkan laga sheegay ee aqoon-yahanka gobolka iyagoo ka wakiila gobolka ay noo keeneen Dr. Bayle iyo raggii la socday kaana xukuumadda iyo aqoon-yahanka isla eegi doona waxaanu jecel lahay kolba intii la fulin karo inaynu fulino hadda la yiraahdo codsi cusub halkan laga soo jeediyey oo noqonaya ballanqaadkii toddobaad waxa weeye maadaama aad loo xuso taariikhda dugsiga Sheekh Cali Jawhar iyo dib u heshiisiintii iyo nabadeyntii iyo tiiru taagista xukuumadaha Soomaaliland in raggii halgamayaasha ahaa badalkoodii dhinteen Ilaahay u naxariistay inta lagu xuso la dhiso taana waa fulinayna haddii la yiraahdo wixii aanu fulin karnana waanu fulinaynaa wixii aanu beesha caalamka iyo dalalka aynu saaxiibka nahay ka doonaynaa waa ka doonaynaa safarkii koowaad waxaan ku tagnay dalka Imaaraadka waxaan u gudbinay codsi ballaaran dawladda Imaaraadka waxaana filayaa in jawaabo khayr badan ka soo noqon doonaan codsigaas waxaan leenahay tiirada dhaqaale ee ku salaysan yahay waxaan ku codsanay dawladda Imaaraadka inaanu khayraad badan hayno laakiin u baahan maalgashiga waxaanu u soo jeedinay waxyaabaha dhaqaale ee ku salaysan yahay dhaqaaleena waxa ugu muhiimsan oo imaka dakhliga dawladda iyo dhaqaaluhu ku salaysan yahay xoolaha nool marka waxaan filayaa maalgashi badan iyo dariiqyo cusub iyo sidayna xoolaha u dhaqanno la koriyo caafimaadkooda la daryeelo oo daaq loo abuuro oo biyo loo abuuro inaynu heli doono maalgashi badan haddii la yiraahdo arinta labaad waa beeraha dalkani waa dal hodana laakiin biyo la'aan baa dhibta ugu weyn tahay dooxyada gobolka waxaa intooda badan waan maray wuxuu la mid yihiin dooxyada kale ee dalka gugiyo dayrtii roob badan baa mara iyo biyo badan saddex bilood kadibna abaar baa dhacdo biyo la waaya marka waxyaabaha aan doonayno inaynu ka tashano ama dhaqaale wax laga qabto waxa ka mid ah qabatinka biyaha iyo beeraha oo isleeyahay wadanka noloshiisa wax badan bay ka bedeli doonaan waxaan leenahay bad ballaaran oo ka badan 800 oo kiiloomitir kalluunka ka buuxa
iyo khayraadka kale ku jiraba kama faa'iidno waxaa laga yaabaa kalluunka laga xado Somaliland inuu 10 jeer ka badan yahay miisaaniyaddeena sanadkii marka dadku wada dhergi lahaa kalluunka waa inooga filan Somaliland dad yar baynu nahay marka waxaan soo jeedinay khayraadka badana inaynu maalgashi ay ku sameeyaan waxa kale oo hodan ku nahay macdanta waxa laga yaabaa dadku itaal badan ma hayaan oo mishiino yar yar iyo dad aan weli shirkado waaweyn hayn iyo waxa saadad imanka khayraadkeena gacanta ku haya laakiin haddaynu helo maalgashi balaaran waxa laga yaabaa inuu noqdo halka ugu hodansan ee aynu khayraadkeenu leenahay inuu macdanta iyo shidaalkii isna waddanka waa diyaar wuxuu ku xidhan yahay in shirkaduhu inay aaminaan in dalku ammaan yahay laakiin waxay xaqiijiyeen in shidaalka ku jiro marka Somaliland wax badan baa laga bedeli karaa haddii aynu tabacano aynu inagu isaaminno aynu maalgashiga saxaana helno taana ku dadaalayna haddii la yiraahdo waxaan ku soo gunaanayaa berrito insha Allah oo Jimcaha waxaanu dhagaxii dhigi doonaa mashruucii labaad oo ah madaarka magaalada Boorama haddii la yiraahdo waxaan u mahadnaqayaa odayaasha maamulka gobolka iyo degmada لما dadka ka soo qayb galay munaasabaddan insha Allah waxaan doonaynaa in aanaguna ballanqaadyada ka soo baxno in dhamaanteen aynu ka wada shaqeyno midnimada shacabka iyo inaynu gacmaha isqabsano waxaan rumaysnahay haddaynu gacmaha isqabsano dhibaato kasta waynu ka gudbi karaynaa siyaasadda xukuumadduna waxa weeye in nabad la helo isbedel la yimaado haddii la yiraahdo nabadda waanu ku baaqnay markii aan xilka qabtay welina waanu wadaynaa marka nabaddaasi waxay ku xidhan horumarkeena waxaa ku xidhan nolosheena waxaa ku xidhan maalgashiga aynu doonaynaa ku xidhan dalka difaaciisuna wayna saaran yihiin oo inagu waajib laakiin mar walba nabadaynu horeysiinayna wax kasta ka horeysiinayna haddii la yiraahdo